filimkeena waxa uu ku bilaabanayaa Siyuna oo ahna gabar 7 jir ah waana gabar kelinimo ku nool aabeed iyo hooyadeedna waa ay ka mashquulaan markasto Siyuna kelinimo ay dareemaysaa laakiin waxa ay ogtaa aabeed iyo hooyadeed inay shaqo ku mashquulsan yihiin oo kaliya mana ka xanaaqaysana markii ay iskuulka tagtana wax asxaab ah kuma lahayn iskuulka ayna ka soo laabanaysaa maalin kasta ayadoo kaligeeda ah maalin roob aad u badan uu da'ayna Siyuna hooyadeed waxa ay joogtay maqaayad ay ka shaqeyso aabeedna ayadoo ayuu la joogay waxa uu ku hadlayay teleefankiisa Siyuna ma taqaan sida ay timeed u xiran lahayd waxa ayna aabeed ka dalbanaysaa in uu xiro maadaama hooyadeed ay mashquul tahay laakiin aabeed waxa uu ahaa mid ayad aadaneen oo teleefanka iskaga hadlaayo Siyuna waa ay dhibsanaysaa waxa ayna ka tagaysaa asaga ayadoo timeed ay furan yihiin aabeedna waxa uu ku dhahay sidaas ay ku qurxoon tahay Siyuna waa ay soo baxaysaa kadib markii ay ka soo daahday iskuulka daladeeda ayna soo qaadatay waxa ay heysay dhabada iskuulka hooyadeed ayna ka soo dabcarray si ay ula hadasho waxa ay u balan qaadaysaa inay bari u xiri doonto timaha Siyuna waxa ay ku dhasay adiga maalin kasta ayaa sidaas dhehdaa hooyadan waxa ay ka dalbanaysaa walba in iskuulka u wada laakiin ayadu waxa ay ku dhasay adiga waxa tahay mashquul ay iska bax ana aadayo hooyadan gabarta waxa ay kaga digaysaa inay ka baxdo wadooyinka yaryar waxa ay ku dhasay wadooyinka waaweyn ka bax Siyuna si aad ay iskuulka ugu soo daahday asxaabteeda oo dhan waa ay ka hormareen wadadana qofna ma mareynin hal marna waxa ka soo hormuuqana nin aad u weyn waxa uu ka dalbanaya inuu la wadaago daladeeda Siyuna ayadu cabsanaysa waxa ay fiirinaysaa geesadeeda waxa ay arkaysaa inaysan qofna meesha joogin waxa ay ku dhasay aniga waa dahsana waana laazim inaa baxa ninkana go'aankiisa ayuu ku adkaysanaya waxa uu ka dhigay inay u wada meel cidla ah halkaasna jir ahaan iyo jinsi ahaan ay ugu xadgudbaya waxa uu ka tagay ayadoo mid dhimatay camal ah Siyuna ugu dambeeyay waxa ay ku guuleysanaysaa inay wacdo ambalaasta waa ayna ka kaxeynayaan meesha booliiskana waxa ay wacayaan waalidiinta dhalay Siyuna waxa ayna si dhaqso leh ku imaanayaan isbitaalka hooyadeedna si dhaqso leh ay ugu soo galaysaa si ay u ogaato xaaladeeda waxayna arkaysaa jirka gabadheeda oo ka buuxana jug iyo dhiig hooyadana naxdin ay la dhicaysaa kadib markay aragtay dhiig inuu ka da'ayo Siyuna waxa ay galaysaa qolka qaliinka waxa ayna ahayn waalidiinteeda kuwa ku sugay banaanka hooyadana waxa ay nafteeda ku eedeynaysaa in ayadu u sabab tahay wixii ku dhacay gabarteeda waxa ayna ka qoomameynaysaa maadaama ayada ay u wadi weysay iskuulka maadaama roob uu da'ay maalinkaas aabahana waxa uu isku dayayaa inuu ayada ka khafiifiyo ilaa marka dambe uu ka imaaday dhakhtarkii ayada qaaska u ahay waxa uu ka dalbanaya inuu ayaka qof kamid ah uu la kulmo kaligiisa aabahana waxa uu galaya qolka qaliinka halkaasna dhakhtarka waxa uu ku dhahay aniga waxa ku qasbanaa in ayada ka jarna mindhiciraha waaweyn sidoo kalena dulalka dambe waxa ku qasbanaa in ku bedelno mid macbil ah maxay la Siyuna mindhiciraheeda waa uu gogo'ay mana awoodi karta gabar yaris ah in la kufsado waxa uu ku dhahay dhakhtarka hadii aniga ka bedeli weyn waxa laga yaabaa in ayada dhimato aabahana waxa uu ku dhahay wax uu sameeyo xataa si ay gabarteedu u noolaato aabahana waxa uu soo baxay asagoo naxsan hooyada ayuuna habsinaya taasoo qalbigeeda uu maqan yahay oo kaliya rabtan inay gabarteeda sii noolaato qalinka kadibna hooyada iyo aabaha waxa ay iimaanayaan qolkii ay ku jirtay Siyuna ilaa marka dambe Siyuna ay ka soo kacday aabaheed uu ag joogo marka koobaad ay soo kacdayna waxa ay bilaabaysaa inay u tilmaamto ninka soo u yaalay aabahana waxa uu ku dhahay waxaan ka sheekaysanaynaa midaas mar kale Siyuna waxa ay ku dhaysay aniga waa daalanahay waxaan rabaa inaan jifto laakiin waxa ka baqaya inay iloobo dambiilaha sawirkiisa waana laazim inaa soo qabataan waxa aynu ku dhaysay aniga ayaa wacay booliiska waxaana ka baqaya inay idin soo waco oo idinkana aan mashquultiin oo iga qaban weysaan Siyuna aabaheedna waa uu ooynaya kadib markii uu arkay inuu gabartiisa uusan waqti sii jirin waagii hore inkastoo Siyuna ay ku jirtay in xaaladaas aad ku adag waxa ay weydiinaysaa aabaheed sida uu shaqada ugu soo tagay aabahan asagoo murugaysan oo ooynaya ayuu waxa uu ku dhahay shaqo ma jirto maanta ma jirto Siyuna waxa ay jifanaysaa ayadoo daalan oo aabaheedna ku dhaysay waxaan dareemayaa inaan mashquul u baahnaa inaan galo aabahan asagoo murugaysan ayuu istaagaya waxa uu ogaa inay gabartiisa aysan ku soo laabanaynin xaaladeedii hore ee ficneed mana awoodi kartana maanta kadib inay cishatan saxarada aabaha asagoo xanaaqsan waxa uu aadaya xarunta booliiska waxa uu ka ogaanay askariid la joogtay isbitaalka inay booliiska awoodeen inay ogaadaan qofka kufsaday gabartiisa aabahan xarunta booliiska ninka ka tali markii uu tago waxa uu bilaabay inuu ku qeeliyo waa ogtiin bay qofka kufsaday maxaa u qaban laadihiin taliyaan waxa uu jawaabay aniga ma hubin ilaa hadirtaan halka kaliya aad ku soo qaban karna waxa ay tahay gabartaada in ayada ku marqaati furto aabahan waxa uu dhahay gabarteeda ayada ku marqaati furayso markaas aabaha markuu isbitaalka imaado waxa uu ku sheekeynaya hooyada wixii dhacay ayadana waa ay ku xanaaqaysaa waxa ay ku dhashay aaba nuucee ayaa tahay dareemina hidniya maxay waxa uu rabaa gabartiisa inay ku marqaati furto ninkii nolosheeda baabi'iyey aabahana waa uu murugoonaya askariidii la socota ayaa bilaabaysa inay dejiso laakiinse hooyadu waxay ahayd mid ka soo horjeeday inay soo xasuusato gabarteeda wixii ku dhacay waa ayna u dhabar jeedinaysaa waa ayna ka tegaysaa askariidana waxa ay ku dhashay aabaha Siyuna alaab ay ku ciyaartay guriga uga Siyuna hooyada gabarteeda waxa ku fadhisaa inay gabarteeda marqaati furto doktorasada cilmi nafsiga ayaa ku imaanaysa aabaha waxay ku dhahaysaa gabartaada marqaati ma furi karto xilliga maxayna sheegtay inay waxa ka soo wareegatay 3 bil oo kaliya doktorasada markii aragtay hooyada inay ka soo wareegtay waxay ku dhashay hooyada uu galaanin macquulba ayna marqaati furto aabaha xasiis waxa uu dhahay Siyuna naftirkeeda ayaa rabtay inay soo qabto ninkii kufsaday ayadana waa ay ogolaanaysa kadib markii ayada ka codsaday doktorasada nafsiga markay soo wareegtay waxay ogaanaysa in caqligeeda uu joogo dambiibaarayaasha meesha ay tahay waxa ay duubayeen marqaati furto gabarta doktorasada nafsiga
badan waa ay ka dhex dooranaysaa booliiskana waxay ogaanayaan inuu yahay isla asagii oo faraha ay ka hayeen oo ayna ka soo heleen jirka Siyuna korkeeda dambiilahana markii la soo qabtay aabaha uu ogaaday waxa uu u imaanaya xarunta booliiska wariyaashana meel kasta ay ka imaadeen waxa ayna rabeen inay la hadlaan booliiska ayaana ka celinaya meesha ayuuna ka cararaya waxa uu ugu cabsanaya gabartiisa sumcadeeda dambiilaha in la soo qabtayna waxa uu ku faafay meel kasta oo kamid ahna warbaahinta aabahana xarunta uu ka shaqeeyay ninka maamula iyo naagtiisa ayaa daawanayeen xaaskiisana saaxiibo dhow waxa ay leeyahay Siyuna hooyadeeda waxayna ogaanayaan wariyaash inay tageen isbitaalka ay ku jirtay Siyuna maamulahana Siyuna aabeed waxa uu u sheegay in gabarta ay ka fogeeyaan isbitaalka maadaama ay soo galeen wariyaasha aabahana si dhaqsi ay wax ugu laabanaya isbitaalka Siyuna qolkii qaaska ahay waa laga soo wareejiyay waxaana la keenay qol ay joogaan caruur badan intiisa wariyaash iyo saxaafadda soo galin qolka Siyuna aabeed ayaa dafay waxa uu nala fuulaya jarjarta warbaahinta oo dhan iyo wariyaashana waa ay bursanayeen ilaa markii dambe uu ka galay qol hal mar Siyuna waxa ay weydiinaysaa aabeed welibna ayadu ooynaysa aniga wax qalad miyaa sameeyay aabana waxa uu ku dhahay adiga weliga wax qalad ah ma sameeynin laakiinse dadka kugu hareeraysan ayaa waxa ay yihiin dad xun Siyuna hal mar neefta ayay ku cishoomayso waa ayna awood weyn inay neefsato aabahana codkiisa dhan ayuu ku qaynaya si loo caawiyo gabartiisa waan isla waqtigii hooyada ay u tagtayna dhaqaatiirta si ay gabarteed u caawiyaan ayadoo xanuunsanaysa ayna dhulka ku dhacaysa waa ayna suuxaysaa dhaqaatiirtan waxa ay ka soo gaarayaan qolka ay ku jirtay Siyuna waxa ayna siinayaan oksijiin waxa ayna ka soo gaareen ayadoo ku siganaysa inay dhimato waan isla waqtigii xaaskiisa ay ku dhaheen waa ay suuxday aabahana waxa uu istaagsanay asagoo naxsan maadaama qoyskiisa oo dhan uu burburaayo hooyadana markii la baaro waxaa la ogaanay inay tahay 5 bilood oo xaamilo ah waxa ayna halis ugu jirtaa inay dhicisto dadaalkii badnaa ee samaysay awgeeda waana laasim inay nasato oo aysan dhaqaaqin Siyuna hooyadeed waxa ay ka sheegaysaa in xaaladda asagoo garanay wax uu dhaxaya dadka waxa rabaa inay wada hadii ay ku caawiyaan waa wada hadii ay ku wajahayaan mana rabaa inay gabarteed iyo xaaskiisa ay waayo Siyuna hooyadeed waa ay garanaysaa balkii xigeenna waxa imaanaysaa aniga waxay maamulaha xaaskiisa Siyuna hooyadeed waa ay ka xanaaqsan maadaama ay soo booqdeen marar badan rabin waxa ay ku saacayeen anigu waa rabina ku soo booqdo marar badan laakiin waa hab ay siinayeen ay ku wada weynayaan rabin maalin oo waxa ay la joogaysaa isbitaalka Siyuna aabeed waxa uu tagay maxkamadda booliiska oo uu keenay dambiilahana waxa uu ahay muridan oo cabsanaynin maxkamadda ayana dhamaanaysa maamulaha Siyuna aabaheedna waa uu xanaaqay waxa uu ku soo tuuraya kabtiisa Siyuna aabaheedna waxa uu isku dayayaa inuu isceliyo si uu caawiyo qoyskiisa maadaama uu rabin in la xiro waxa uu soo aadaya isbitaalka intuu wadada ku sii jirayna waxa uu damacayaa inuu waxyaabo soo iibsado laakiin lacagtii uu watay oo dhanna waxa uu arkay inay ka dhamaatay Siyuna aabaheedna waxa uu cayaa maamulihiisa kaasoo asaga aad u jecelaayne